بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين آمن لك أوفيشيال ولا ليال مدبا مسوا دلانتيد waxaan duganayo dhagahaygu maqlaan macaldoonki dhabta Allah baa ballan qaaday inuu garab istaago ruuxa xaqa u hiilshee caldoon caawo xorweey xilligaas waxay soo geliyay iyada waqti dambe ii tahay farxad caldoon baan arkay riyaan dareemayaa riyo inay run tahay ma u malaynayo laakiin ilaahay baa xaqa u hiiliya walaalkiin caldoon oo caawa xorriyadiisa u soo noqotay farxadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiinta oo dhan inay ku farxaan baa rajaynayaa caldoon waa xaqa nin u hiiliya waa qof diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dadaalay qaala rasuulullah qof lagu qabsaday rabbi subxaanahu wa tacaala caldoon oo garabkaaga ha galo mar walba waan kuu ducayn jiray alxamdulilah caawa haddii aad ka soo baxday xabsigii ilaahayna kuguma celiyo meeshaas rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan kaaga baryay inuu kaa badbaadiyo allama isagii baa talo mise waa beebeen walle caldoonoo diinta waa u dagaalanta walle xaqa waad u dagaalantay haddana waxaa lagu weydiiyey su-aal ah miyaad wadi doontaa markaasaad tiri geesinimo weligii xaqa kama aamusaya ilaa geerida mooyaane wallaahi billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ha kugu dilo raganimadaas iyo geesinimadaas iyo xuquuqal inuu qofka xuquuqda noocaasa uu ilaaliyo diintiisa in yar bay hadda ku hartay dadka nool ummadda nool ee hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan saaray in yar bay ku hartay inay xaqa ay sidaa ugu dhibaatoodaan diinta weligeed baa loo soo dhibaatoon jiray asxaabtii baan ogeyn dhibka usoo mareen iyo taabiciyiintii maantase xilliga aan joogno in yar baa laga helaa qof diinta u dagaalama ama xaqa yidhaahdo war waxaas waa khalad ha laga joogo waxaasna waa saxa lagu socdo qof yidhaahda waa yaryihiin qof dad qaatay xadiiskii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa yaryihiin in wanaagga la isfaro xumaantana la kala reebo caldoon in yaroo tala un baan ku siinayaa haddii ilaahay yidhaahdo kolley afrikaad joogtaa oo waa meel iska maasha allah xorriyatal qowl wax la yidhaahdo kama shaqeeyo inkastoo aday xorriyatal qowl keliya aadi samaynayninoo xaqa aad ku addimaysay meelo badan wax ka fiiri dadku maaha dadkii ilaahay inta badnaa ku xidhnaa aad bay u adag tahay inaad sidaadii kusii socoto xaqa sheeg laakiin meelo aad ku sheegi karto u guur baan ku dhihila aniga da tala walaaltinimo meel aad ka hadli karto matal caasimadda soomaaliya oo kale u guur baan ku dhihi lahaa meeshan haddayna xorriyad oolin oo layska xirayo qofka wixii lagugu xirayana maanta uu soo baxayo ninkii mar dambe la ogaaday inkastoo mar la yiri wuu muslimay haddana ilaahay baa og dadka inuu iskaga sii jeedinaya baa dhici kartaa adigase u malayn maayo in aad sidaadii ay marba kugu sii dayn doonaan adoo xabsigan baad kusii soconaysaa mar walba inkastoo aad u wanaagsatay qofka diinta islaamka inuu dagaalamo wallaahi bay mar bay ii tahay farxaddii baan soo galay anoo iska news wax iska daadaawanayaan ku arkay waa rumaysan waaye ilaahay dartiis baan kugu jeclahay coldoonow iyo xaqaad u hiilinayso ilaahay masaalkaaga hanoo badiyo ilaahay kuwa diinta u dagaalama sidaada hanoo badiyo ilaahay kuwa xaqa dadka u sheega hanoo badiyo rabbi subxaanahu wa tacaalana waxaan kaaga baryayaa inuu ku xifdiyo kaana ilaaliyo cadowga ilaahay baan kaaga baryayaa coldoono ilaahay adigii awlaadaadii qoyskaagaba ha xifdiyo qof walba xaqa ku addimay iyo qof walba xaqa ka hadla anugu inaan garab istaaga ayaan jeclay anigoona dhinacna kale u eegaynin ama qabiil ha ahaato ama nooc kale ahaata aanan u eegaynin u eegaya islaamnimo u eegaya xaqa keliya uga hadlay iyo diinta uga hadlay siyaabaha aan kugu taageerayana waa taa
waxaad la soo istaagtay anigu ilaa geeri mooyaane weliga xaqan sheegaya laakiin dadkii wax magaratada ahayd intooda badani ma joojinaysaa wariyihii baa ku leh waxaas ma joojinaysaa macnaha waa damiirkaagu ma dhimanaya nin dhan oo laleeyaha damiirkaagu ma dhimanaya sideenoo kale damiirkaagu ma dhimanaya oo raalli ma ku noqonaysaa inuu damiirkaagu dhinto damiir nool oo hadla oo wax sheega oo xaqa ku adima lama rabo meeshay doontaba waddanka inta badan ha ka jirtee hargeysaba ha usii badnaato meesha ee dadka maaragta layskaga xidhayo qof baa waxaa lagu xidhayaa waxaad soo xidhatay mara blue ah qof baa waxaa lagu xidhayaa xamar baad tagtay xamar baad ka soo heesta haddana waxaa la leeyahay horumar baanu gaadhnay horumar ha la gaadho lama xumaa laakiin horumarku ma aha in diinta laga soo horjeesto nin gaala oo dadkii gaalaynaya oo carruurtii gaalaynaya oo wuxuu doona ku dhaqmaya haddii liidinku yiri war ka digtoonaada coldoon ma umalaynayo inuu dhib idiin geystay ma umalaynayo inuu coldoon dhib u geystay waaba qof wanaag kuu sheegayba xumaanta qofkaa qabtay marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala maamulka halkaa ka jira ha fahansiiye xaqa ha fahansiiye rabbi baan u baryayaa inuu xaqa fahansiiyo oo uu dadka qofka diiniyan raba inuu ka dhumiyo dadka diintooda inuu ka qabto wallaahi marka qaar waan yaabaa sida maaragtay arrinta dadka laysaga xidhay beri waxaa jirtay I don't know inaad maqasheene waxaa jira maskiin waxaa lagu xiray siilaanyo magaciisa macallin buu ahaa maamulo iskuul ma aqaan waxbuu ahaa wuxuu u tegay nin macallinkiisii oo dhib geystay dhib lagu qabsaday wixii buu siiri midhaa cashuur iyo waxbaa lagu qabsaday wixii buu siiri ka soo bixi booliiska somaliland wallah waa fani qosolka kaa dhamaynaya wallahi markaas waa qostoo iska qoslaa ninkiiba waxaa loo tegay ninkiiba u socdo qof dhan cashuur soo bixinayo waddanka maashaara daacad wa oo u tegay baa waxaa la yiri bay yiraahdeen magacaa markaasuu yiri silaayo magaciisii dhammaystirnaa buu sheegtay muxuu ahaa magaciisi silaayo alla maxamed axmed xasantiin waaba ilaawa magaciisii magacii dhammaystirnaa madaxweynihii hore ayuu ninkan sheegtay ciyaar bayba u maleeyeenba ninkiiba iska xireenba maxaa laygu xidhay buu yiri maxaad u sheeganaysaa bay yidheen silaayo magaciis ha axmed silaayo axmed acuudu billah silaayo maxamed axmed wax saas wixii buu adigu sheegtay magacii buu wada sheegtay ana siyaasadda waa lagaga fiican ma wada aqaan madaxweynayaasha intooda badan muuse bixiyo waan aqaanaa iyo riyaalo kaahin iyo waa xasuustaa laakiin silaayo axmed maxamed wax saas u ahaa magacii aduu ninkii intaasaa lagu qabsaday intaasaa waxaa looga dhigay dacwad ilaa markii dambe silaayo uu si fiican sameeyey yani silaayo oo fani ahaa intuu u tegay war iska daayay war ninkan waxay la magacaaba isagaa la helaya wuu ka soo daayey reer magaal buu ahaa silaayo wuu ka soo daayey ninkaas meesha magaca laysku qabsanaya magaca seed silaayo ula magac noqota oo waxay moodeen inuu magacii sheegtay moogta magacii waa ilaahay amarkii isku aabbay noqdeen isku awooway noqdeen saddexdii magacba wuu sheegtay isla mid buu sheegay markaase war waxay ninkan ciyaaraya war ma adiga silaayaha silaayo hebel ah war ma adiga war xidha war xidhan walaa caadi maaha ruqooyigu marka ilaahay subxaana watacaala xaqa ha fahansiiyey dadka sidaa magaca dad ku xiraya weeyaan marka qaar xaaladaha ay ku samaynayaan wax loo dulqaadan karo ma marka coldoono rabbi ha kaa xifdiyo rabbi ha kaa ilaaliyo ilaahay waxaan kaaga baryayaa adigu xaqa baad ku adimaysaa run baad sheegaysaa in ilaahay kaa qabto wixii khalad kugu waday kaa gardaran xaqana waxaan odhan lahaa reer hargeysiyey diidin wixii khalada laydinka qabto ninkii gaala iyo ninkii arrimo kala wada intaynu qofka walaalkiina kusoo jeedsan qofka kale maaragtay ogaada waxa uu dalka ka wado waxaa jira hay-ado badan oo loo soo dirsaday dadka islaamka loo soo dirsaday xumaana ka dhex wada idinku marka qaar aan la ogaan karin cadowgu wuu badan yahay gaalkaa kuu imanaya ee ama hay-ad iska dhigaya ama inuu wax ku taraya iska dhigaya
inta badan waxay keeneen diinta ayay maaragtay gudbiyaan mission baa la dhahaa way sameeyaan meelaha waxay tagaan wadamo badan oo wadamooyinkaas iska gaajada ee matal aan aada loo ilaalinayn ba iska tagaan marka diinta aad bay usoo gudbiyaan marka hadduu idin sheego idinku yidhi war ninkan iskuulka abaarsa mas-uulka ka ah waa qolooyinkaas arrimahaas wada ama caruurta baabi'inaya ha la qabto in mar kastaba la baaro oo la ogaaday ahayd waa lasoo baaray baa layidhi laakiin baaritaan xooga oo fiican laguma samaynin marka coldoon marnaba xumaan idiima wada coldoon waa ninka qofkiini liita wax tara waa ninka iska daa bini-aadmiga ee xayawaankii wax taray waan ogeyn wiil maskiinkii ninka odayga ahaa geedka ku xidhnaa siduu asxaan ugu sameeyey waan ogeyn barnaamijkii kaalmee kuwan siduu u qaban jiray u gacan qaban jiray waan ogeyn dameerkii meesha ku jabay inuu u naxariistay iska daa aadana iska daaye xoolihii iyo xayawaankii buu coldoon u hiilinayay ilmihii yaraa meesha lagu soo tuuray kaamarada qarsoon dadkii uu ku caawinayay qofkii marka walaalkaagii dhibaataysana sidaa u tiraya inaad aragtaan isku daya reer waqooyiyo ama reer hargeysa ama reer somaliland oo isku daya inaad qofkiinii fahantaan wanaagga idiin sameynaya ha ka soo horjeedsanina oo ha u qaadanina inuu maaragtay cadow idinku yahay cadow idinku maaha coldoon waa ninka keliya xitaa xildhibaan ama madax mid walbo aad eegtaan waa ninka keliya ee idinkaga soo hormaray ee wax idiin qabtay oo qofkiini liitay ee rafaadsan ama dhibaataysan wax taray marka ilaahay intaad ka baqdaan haddana waa la soo daayay su-aalaha badan intaad ka daysaan maskiinkaa daba maaragtay u naxariista oo isaga maaragtay garab istaaga isagaa wanaag idiin waday isaga garab istaaga maalin walba liintii baa idin sugaysay liintii baa ku sugaysay waa lagu xirayaa iyo waxaa idinkoo ka fakara inta uu wanaag uu samaynayo iyo waxa uu qabanayo iyo waxa uu hiilinayo coldoon naftiisa maaha inuu u dagaalamayo coldoon ma aha inuu qoyskiisa u dagaalamayo coldoon wuxuu u dagaalamayaa waddankiisa oo dhan buu u dagaalamayaa xaqana wuu ku adimayaa wuuna sheegay xaqa ilaa yowma alqiyaama maalinta uu dhimanayo ee naftani sii daynaysa ayuu xaqa ku adimaya qofka hadduu dabeecadda u dhashay lama bedeli karo ninka dabeecaddiisa weeyaan dabeecaddiisana lama bedeli karo marka hadduuna cidna caayan cidna wax dilayno dadki wax tarayo waxaad ku haysataan baaba khalada waxa lagu qabsanayaa ama liin loo siinayaa ama brax xabsi loo gelinayo oo ciyaalkiisa iyo qoyskiisa loogala cararayo ayaaba gardara marka ummadii xaqa taqaanay ilaahay taqaanay ninka islaamka u hiiliya oo garab istaaga xaqu ku adimaya ninkii faduul iyo hawlo kala wada ee maaragtay arrimo qabaa'il iyo wax ku jiraan ilaahay xaqaha ku faansiyo wax kale oran karaa ma jiro coldoon aad baan ugu faraxsanahay inuu ilaahay ka soo daayo xabsiga rabbina waxaan kaaga baryaa inuu dib kuugu celin qoyskaaga quruxda badnaana inuu ilaahay nabad kuugu geeyo baan ilaahay kaaga baryaa walaalo aad iyo aad baan maaragtay ugu farxay wallahi farxadaadi waan joogi kari waaye xilli dambe oo aan shaqo ka imi ayaan soo galay adiga aawada marka walaalo waxaan leeyahay soo dhawow